بسم الله وين السلام اسماعيل warsame digital media waxaan jeclahay inaan xoogaa yaraha ka sheekaysano waxaan dhageystay in yar ka dhageystay khudbaddii madaxweynuhu shalayta uu akhriyay dhalinyaro reer puntland oo la yidhi waa laga soo ururiyey degaamada puntland si ay ula kulmaan madaxweynaha talooyinna ka dhageystaan isagoona ku darsado bal wixii talo uu hayo la wadaago dhallinyaradaas dabcan erayadii aan ka dhageystay madaxweynuhu soo qaaday oo ah war tayeynta iyo tiigsiga tii hore ay ahayd laakiin hadda waxaa loo baahan yahay midnimo iyo nabad dabcan waa runtii waa loo baahan yahay muhiim weeye laakiin meesha iyana waxaa ku jidha puntland waxay u baahan tahay taxadar iyo talo wax ku ool ah taa macnaheedu ma aha ciddii isku dayda inay madaxweynaha la talisaba in loogu jawaabo waa ogahay waa la socdaa waa aqaanaa mana aha talo kastoo wax ku ool ah in laga soo qaado mid laga maarmo ama aan loo baahnayn taas macnaheedu iyaduna ma aha in nin kastoo tala haya uu wax ka doonaya madaxweynaha ama jago ama wax kale uu ka doonayo dad badan oo reer puntland ah ayaa jira oo raba inay tala ku biiriyaan oo ka daqnanaya dhibaatooyinka puntland haysta oo raba inay talooyinkaas ku biiriyaan wax ay kaga doonayaan ama ku iibsanayaanna talooyinka aysan jirin haddaynu dib u jalleecno waxyaalihii soo dhacay oo u baahnaa taxadar iyo ka fiirsasho iyo talo wax ku oola waxaa ka mid ahaa war lacagtii shaqaynayso soomaaliga ahayd ha iskaba liidato laakiin shaqaynaysay oo masaakiinta markay ugu yaraato wixii hadda la heli karo loo tuuri jiray inay maanta waraaqa la wareegayaan oo nambarra ku qoran yihiin oo yacni xaaladda noocaasay ku sugan yihiin yacni talo waxay ahayd taxadar iyo talo wax ku oola u baahan 8 bilood ayaa dadka saaxmaygaag iyo sanjabiye soo qaylinayaan oo yidhaahdeen war meeshaan waxaa ka soo socota dagaal iyo fidno oo aan dheg jalo loo siin arrintaasuna waxay u baahnayd taxadar iyo talo wax ku oola arrinta boosaaso siday ku bilaabatay waa laga teliyey iyadoon waxba dhicin iyadoon dagaal dhicin waxay ku ekayd markaas aan xusuusto ninkii agaasimaha laga qaaday hay-adda b s f oo diiday inuu xilkii tiriyo arrintaasu waxay u baahnayd taxadar iyo talo wax ku oola ayay u baahnayd arrintii baarlamaanka ka dhacday dhiiggu ku daatay guddoomiyihii maaragtay dhoobadaarood lagu cayriyey talo wax ku oola iyo taxadar bay u baahnayd middii kale oo lagu cayriyey 8 xildhibaan intaan la cayrin waxay u baahnayd in laga fiirsado oo talo wax ku oola iyo taxadar bay u baahnayd waxyaalo badan oo waxaa jira howlaha puntland la xiriira oo u baahan talo iyo taxadar u baahan waxaa la yidhi war maskax keliya ama madax keliya waxaa ka fiican 2 madax ama 2 maskaxood oo isweeshata oo isla talisa
oo maaragtay raadiya talooyin wax ku oola marka wuxuu yidhi wareerka wadeeca alla waxa loogu daro ku baaqidda nabad iyo midnimo tayeyn iyo tiigsasho waa in wax lagu daraa waxaa meesha ka maqan taxadar iyo talooyin wax ku oola bay u baahan tahay puntland aad baa u mahadsantihiin intaasaan odhan lahaa